hablaha dunidan dhex jooga adaa dhool dahab u muuqsan dhabtii waxaad tahay hormuudka dhammaan ku daydan faceedu dhamays baad tahay nasraay dhaliil maba lihid xumaan dhigaabad u tahay haldoor dhigaabad u tahay haldoor. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي قالي أن جعلها وائد سلامي ميلو البادوني الدافية كجوكتان ومركلة إيولاشي النصر أبتدون أو إذين وضمو قال كالو عصب وقورين أصحابتي أن جعلها وحا إذين كجمهد علنا سيدو قروح لبضنا مروا بيلا سعوتان إيغو صادرتان فريمهين أمو كومنتيدين إسوغو جرى دعادي يديري جلنتا هذا umahadsantihiin meel walba aad joogtaan waxaa idin leeyahay farxad iyo caafimaad ku noolaada insha Allah. asxaabteyda qaaliga ah maanta waxaa idin wadaa ceesh aad u macaan badan dabcan hore janaalkayga ceesh waa usoo geliyay laakiin ceeshkan wuu ka duwan yahay ceeshkii hore aa u daawateen. ceeshkan waxaa dhexda uga jiro jiis runtii waa ceesh aad u macaan badan sidaad muuqaalkiisaba ka aragtaan marka daawasho waxaan sida u sameeyay. marka ugu horeysa meeshan waxaa ku haystaa 2 koob iyo haaf oo bur ah. koobka aad ku cabirtan waa koobka caanaha iigu jiro. sidoo kale waxaa ku darsanayaa 1 qaado oo sonkor ah. sonkorta hadaba aad jeceshahay intaas waa ka badsan kartaa hadaa rabtidna intaasaa ka dhigi kartaa. waxaa kaloo ku darsanayaa 1 qaado oo qamiiriso ama leebito ama fixiso sidaad u taqaanaan. sidoo kale waxaa ku darsanayaa qaadada haafkeeda oo baking powder ah. waxaa kaloo ku darsanayaa qaadada haafkeeda wax yar yacni oo cusbo ah. sidoo kale waxaa ku darsanayaa 3 qaado oo subaga isticmaalaya. 2 qaado hadda ku dara 1 qaadana hadhow waa gadaalka isticmaali doonaa insha Allah. sidoo kale waxaa ku darsanaynaa 1 xabo oo ukun ah. ukunta hadda xasaasiyad ku qabtid waa ka maarmin kartaa. waxaa kaloo meeshan ku haystaa 1 koob oo caano ah. caanahan waa caano qandac ah. hadaa rabtidna biyo ku bedelo laakiin caanaha maasha Allah aad ay kugu jilcinayaan. caanaha koobka wax yar aa ka reebaya sida ujeedaanba intaas oo iska reebi doonaa oo koobka ku jirto ma isticmaali dooni. burkana markii koowaad 2 koob aa soo cabiray haafka aa idin soo sheegayna gadaala uga darsanaya ma fahamteen si tartiib tartiiba ugu darsanaya laakiin baaquliga waxaa marka hore kood igu jiro wuxuu ahaa 2 koob oo bur ah. andan sida oo wada ogtihiin baceesh markii la qasaayo ama rooti ama wax walba oo macaajinaad ama yacni cajiin ka sameysan si fiican oo rabaa in loo xasho ama loo qaso marka si fiican u qasaaya markuu asaga dhan maasha Allah ii noqdo soft jileec uu si fiican isku dhaxgalo. markuu is dhaxgalo waxaa ka dareemaysaa indhaha sida idin sheegay bahalkii qaada hadda gadaal ugu soo daray oo subaga ahaa waa ujeediin somaha maasha Allah si fiican igu qasmooyaa yacni wuu jilcan yahay ima dhibaayo. burka haddaa adeeg ka dhigtid waxaa waaye markaa qasiis wuu ku dhibaa. waxaa ka fiican inta adkeen lahayd inaad jilcisid oo gadaal aa bur uga darsatid. hadduu yacni ka adkaado way dhib badan tahay sida lagu qaso laakiin hadduu kaa jilco buraa gadaal uga dari kartaa ma fahanteen. marka maasha Allah hadduu ii qasmay inuu ii qasmin waxaa ku ogaana asaga dhan maasha Allah smooth uu noqdo israacraacaya. haddana baca ku daboolaya kadibna waxaa rabaa meel aa dhiga intuu iiga qamiiraayo. markuu ii qamiiro kadib aa isku soo noqon doonaa insha Allah. isla socod wanaagsan. hadda wuxuu ii daboolnaanayaa adiga ku dhawaad 20 daqiiqo. 20 daqiiqo kadib ay la arki doontiin sida uu kusoo baxay insha Allah. isla socod wanaagsan asxaabi. waa tahay asxaabay intuu inoo qamiiraayo burka waxaa diyaarsanayaa jiiskii aa dhexda ka gelin lahaa ceeshka sida hore idinkugu soo sheegayba. ceeshka maanta waxaa ku sameyn doonaa jiis ama farmaajo sidaa u taqaanaan. farmaajada 2 nuuc waaye markay suuqa aa kasoo iibsanaysid ama supermarketka. mid waxaa way xoqon tahay way diyaarsan tahay midna ma xoqno. mid hadda isticmaalo waxaa midda aa xoqneen anaa hoolaayo waxaa ii taalo bahasha oo lagu hoolo oo karootada iyo waxyaabahaas waa kaasaa sidaas u egtahay markii la hoolo. farmaajada waxaa midda lagu daro biidsaha oo inuu jiidjiidmo ka dhigaysa ma fahamteen aadaynu macaanaysaa runtii. marka insha Allah iyada dhan waa soo hoolay sidaanay diyaar iigu tahay. hadda waxaa inta ku haystaa kabsar caleen. kabsarta waxaa sameynayaa marka hore waa soo dhaqay waxaa waaye
qeybta dabada dambe oo xididka ah kasoo gooyay. Kadibna waa jarjarayaa si yaryar oo jarjaraya kabsarta. dabcan waa isweydiineysaan kabsarta maxay Nasro u isticmaali doontaa. idinkaa arki doona insha Allah waxa uu isticmaali doono. ila socda yaan la iga harin fahanteen. si fiican ila socda insha Allah. kabsarta hadda sidaanay diyaar iigu tahay. waxaa inoo xigi doono farmaajadii aan soo xoqay ama jiiskii mozzarella cheese waa jiiskan. waxaa kusoo darayaa kabsartii aan soo jarjaray ma fahamteen. marka kabsartii iyo farmaajadii markaa isku daro waxaan kaloo kusoo darsan doonaa insha Allah cream cheese ama jiiska oo cream laga dhigay. isagana waxaa lagu gadaa supermarketka. waxaan ka isticmaalayaa 2 qaado cream cheese-kan. kadib waxaa ku darsan doonaa insha Allah wax yar oo filfil ah. carafna way iga dhigaysaa filfisha. maasha Allah tastina way siinaysaa. sidoo kale wax yar cusbo ayaan ku daray sida ujeedaanba. cusbadana mal rabo inay kaaga badato wax yar oo far iyo suul camal ah. far iyo suul cusbo ee camal la rabo in lagu daro sababtoo ah jiiska asaga dhanaan leh. marka cusbada mal rabo inay kaaga badato. dii kale cuntada dhow cusbaa looga cararan fahamteen. cuntada la cuni karnee noqonee. intaana isku walaaqay diyaar ay tahay. hadda waxaa u laabanayaa burkii oo ii qamiiray. asxaabteyda 20 daqiiqo kadib burkii wuu soo qamiiray oo ujeedaan sidoo u soo kacay. bacdiyaan ka qaaday maasha Allah isaga dhan waa kaas uu soo fuuray. 20 daqiiqo waxaa waaye yacni inuu ku qamiiro waxaa sababay maadaama aan ku daray qamiiriso iyo bakin labaduba isku la daray. leebita iyo bakin aan ku daray. hadaa leebita bas ahaan lahayd waxaa macquul ahaan lahayd inuu 40 daqiiqo meelahaas ku qamiiro. marka asxaabey waxaa sameynayaa dhowr cado waxaa u jarjarayaa oo slag egg waa sii kuskuusa waa diyaarsanayaa. howsha iska fududeyna ma fahamteen. marka hal mar isagoo ii kuskuusan kadib fidintaa geli doonaa inaa fidfidiyo insha Allah. marka dhagaxan waa ujeediyay meesha aan ku fidinaayo. miiska waxaa waaye bura ii marsan. bura si fiican usoo mariyay si aysan iiga dhegdhegin ceeshka sababtoo ah wuu jilcan yahay maho. marka hadii kale meesha inuu kaaga dhegdhegaya bur fiican la rabo inaad isticmaashid. gacmaha bur marso. qorigaa ku fidin rabtid bur marso. meesha aad ku fidinaysa bur mari. waxaan ku dhahay maasha Allah kaaliska arag ka dhiga waxaaga dhan. sidaana usoo kuskusay sida hadda ujeedaanba. adiga wuxuu ii noqday ilaa iyo wuxuu ii noqday adiga 7 cad. halkan yacni jabkan wuu yar yahay. 6 kalena way isla egyihiin. markaad waxaa bilaabayaa inaa fidiyo. hal xabo kamid ah soo qaatay burkii ii diyaarsanaa oo soo kuskustay. mid walba waa fidinaya. markaa fidinaysid waxaa lagaa rabaa inaa ka dhigtid qafiif. si qafiif u fidisid sababtoo ah anaga waxaa rabnaa inaa isku laabo. maadaama isku laabayana haddii butaca ka dhigtid oo si fiican aa qafiif uga dhigay markaa fidinaysid wuxuu kaa noqonaa cajiin. hadhow ceeriin uu kaa yeelanaa. mal rabo inuu saas kaa noqdo. waxaa maanta dhan kusoo tiiray tacbeeleysa khasaareye noqonin. waxaa hadda dhexda ka gelinayaa oo hal qaada aa soo qaatay jiiskii kabsartii iyo maxaa la dhihi jiray filfishi aday wixii isku diyaarsanaa isku kay qasqanaa aasoo horey usoo aragteen. waxay ka koobnaayeen muhiim ah haddii inaa sii sheegmo horaa usoo aragteen. marka waa isku soo laabayaa. kadibna farta sas geesaha kule leeyahay waa isku dhadhajinaa yacni. haddana waa jarayaa. jaritaanka muhiimada ah kale waxaa waaye inuu ii noqdo ceeshkeyga ceesh qurux badan oo isla siman maasha Allah. geesaha dhan oo noqonin wax kala dheerdheer. kadib gacanta sas kule leeyahay. gacanta ku sisimayaa si isaga dhan iskula ekaado maasha Allah. kadibna waa dubayaa. maxaa kaloo ii dhimanba waa kasaa saanaaba ku dhameeyay ma fahamteen. dubista hadaa ka baxo bis waaye. marka asxaabey birta qaleel waa hadda wax saliid ma laha. anuu ogtiin wax qurxana ka dambeeya. ceeshka markaa geesaha ka jirtid qurux maasha Allah ku noqona isla siman. cabaar kadib warwareeji. gacantaada isticmaal warwareeji si uu maasha Allah gaduud qurux badan kugu noqdo. teeda kale waxaa idinkula dardaarmaa inaad dabka u gaabisid. haddii kale dhexda ceeriin isagoo karka gaduudna ma fahamteen. marka dabka iska gaabiya. sidoo kale saliida hadirtaan kor uga soo shubay. wax yar oo saliid ah aan badnayn. burushka ku marmariyay sidaa ujeedeenba. marka hadda hoos wuu ka bislaaday already wuu gaduutay. waa gadiyey waa kaasaa qurux hoos dhanmoo
kalar yaroo maasha allah dahabi dahabi oo qurux badan ii noqday. hadaa laakiin dabka u dheereysid ceeshkii oo ceyriin dhexda ka ah uu korka gaduudanaa qaab daraa ka dhaceys ma fahamteen waxaa la cuni karin oo noqonayaa. marka saanoo biseel igu yahay waa ka dejinaa xabadka koowaad. xabadka labaad haddana idin tusayaa sidii hadaay aa sameeyay camal dariiqada hadaay aamaro kala maraa sidii oo kala u fidinayaa. labada xabo u horeysa idin tusaa ma fahamteen because muhiim ma aha inaa yacni maanta dhan idin tuso waxa aad dubaaya dhan videoga leenu dheeraanayo laakiin muhiimada waxaa wax yaroo sambal inaa idinka tuso. sidoo kale aad jiiska dhexda kasoo gelinaa. jiiska marka hadaa iska dhex dhigtid le aa ku dawooshid hal dhinacu u badanaa marka qaadada inaa ku sisimtid muhiim waaye aa isla sisimtid jiiska dhan. waxaa ku dhahay cuntada ma laga fikiro dhadhankeeda bas ee waxaa laga fikiraa quruxdeeda soo maaha wixii indhaha deeqaa uurka deeqo. marka waa ujeediin geesaha saasa uga jarjareynaa maasha allah geesaha dhan waa isla simaa kadib gacanta jagjag ku siinayaa waa sii adkeenaa suu iiga kala furmin. yaa waxaa ku dhaha maasha allah geeski buuran bajar wax falcun badan waa ka ordaa ma fahanteen. marka haddana waa soo saaray gacmihii halka burka buuxa arka marka jikada ku jirsaanayaan dhan waxaa iska dhigayaa bur iyo dhusuq. soo asxaabteyda oo ujeediin qeybta hoos haddana wuu gaduuto waa gadiyey waxaa sugayaa intuu qeybta kale haddana ka gaduudanayo saasa saliid u marmarinaya ujeediin quruxu ii noqonayaa maasha allah. hoosna wuu ka gaduudanaa markuu hoos biseel ka noqdo geesaha waxaa laga yaabaa wax yar geeska inuu yacni gaduud u baahdo in la gaduudiyo. marka geeska hadduu gaduud u baahdo waxaa sameynayaa sasa u qabanaa labada dhinaca kala qabanaa wax yar waa istaajinaa ma fahamteen ceeshka dhan wuu jiifa mogta hadda waa la istaajinaa si xoogaa dhinaca yarka uu gaduud uga noqdo. waa haddii aad gaduud u rabtid waaye oo jecesha inaad gaduusid haddii aad rabtidna saanaa ku dhaafi kartaa qasab ma aha. marka waxaa rajeynaya inaa aada ii fahamteen labadan xabaa idinka tusay qaabka u duubaya iyo qaabka u duubaya ujeedin geeska gaduudu ka noqdo maaho. marka intaana idinku filan dabcan aragti hoosna maasha allah gaduudkan quruxda badan oo kasii noqday hadda diyaaru ii yahay ama waa ii bisil yahay. dabka gaabi please dabka iska gaabi an ma jecel intaa wax yacni tijaabinaysiin aa iga fiirsateen inay idinka khasaaraan. marka dabka hadaa dheereysid waxaa waaye kakacuu noqonaa ceeshkaaga maasha allah. waa ujeediin quruxu kusoo baxayaa ku dhahay ujeediino aada u cajiib u yahay. soo diyaar waaye xitaa marka uu maasha allah uu soo kaca soo fuuraa sidaana kusoo wada dhameynayaa. waa tahay asxaabteyda aad jeclahay waa ujeediin ceeshkii maasha allah waa soo dhameeyey adiga 7 xabo ii noqday 3 xabo waxaan ku dhahay intaa dubaya ciyaalka kala dafdafeen xabadka duubahooyna si ilaa caraftiisa sanka ka galaysa mogtahay ilmihiina way ag taagan yihiin marka iyaga u kala jajabiyey way cuncuneen saana waxaa ku dhahay 4 xabo bis kusoo hartay. soo waxaa ku dhahay maasha allah cajiib waaye macaan kaaliska arag caraftaa kaaga daran jiiska uu carfayaa markii dabka la saaro teeda kale subagaa ku qasamaho subagana caraf oo wuxuu u sameynayaa maasha allah kaaliska arag haddaa subaga jecleen saliid ku bedeli laakiin anaa ogtii mar walba inaa subaga aada u jeclahay oo cuntooyinka mar walba aa ku darsado. marka asxaabey waxaa rajeynaa inaa cashirkeena maanta ka faa'iideysateen oo ka wadeesheen. ceeshkan ciyaalka aada ugu fiican yahay sababtoo ah jiisa ku jiro jiiskana ilmaha wuu koriyaa. mida kale wax maraq ma u baahan inaa ku cuntid sababtoo ah jiis oo dhanaana ku cuneysaa oo dhexda kaga jiro marka uma baahno wax maraq dhan. qarash ahaan xataa wuu kuu qarash yaraya ma fahamteen meesha hilib iyo suugo iyo wax ka sameyn leed howl ahaan wuu kuu fududyahay oo suugadii waqtigay kaaga baahneed ma kaaga baxeyso. qarash ahaana maasha allah labada dhanba waxaa waay ka faa'iideyso. teeda kale jiiskana calcium badan uu leeyahay ciyaalka wuu koriyaa way ku cayilayaan maasha allah. waxaa ku dhahay xaajiga xataa hadaa nafaqo u baahanta waa siin kartaa. yaa waxaa ku dhaha maasha allah de kaaliska arag keliya ciyaalka ma loogu talagelin markaa dho ciyaalka u fiican yahay dadaa waxay malaynaa cuntada dhan in ciyaal loogu talagale laakiin waxaa waay qof weyn iyo qof yar buu cuni karaa cunto waxaa maasha allah casho eena beel la ku sitaa inaa ka dhigatid. marka asxaabe waa kaasa dhexdiisa markaa kala jaro jiiska saas u kala jiidmaayo waxaa ku dhahay biseel uu noqday ceeshka kor iyo hoos ilaa dhexda biseel waa wax ceeriin ma ku jiro. markaa cuntidna waxaa ku dhahay
inaa ka sheekeeya ma u baahnabo idinka yacni waxaa la rabaa carabkiina inaa ku ogaatiin. soo asxaabteeda aa jecla waxaa rajeynaya inaad si fiican uga faa'iidaysateen yaa war idinku sii badinin. waxaa idinkaga tegayaa kheyr iyo caafimaad iyo nabad. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.